Barashada luqadda Carabiga waa fursad weyn oo muhiim ah, gaar ahaan haddii aad xiisaynayso dhaqanka Carabiga, diinta Islaamka, ama aad rabto inaad barato luqad looga hadlo dalal badan oo adduunka ka tirsan. Halkan waxaan kuugu soo gudbinaynaa tallaabooyin kaa caawin kara barashada Carabiga. 1. Baro aasaaska naxwaha. Carabiga wuxuu leeyahay naxwe iyo qaab dhismeed gaar ah, sida isbeddelka ereyada iyadoo lagu saleynayo xaaladda iyo ficilada. 2. Ku tababaro qorista iyo akhriska. Qoraalka Carabiga wuxuu ka duwan yahay luqadaha kale, wuxuuna ku qoran yahay farta Carabiga oo ka bilaabata bidix una socota midig. Akhriska iyo qorista waa muhiim si aad u fahanto luqadda. 3. Dhageyso oo ku celceli. Waxaa jira codad iyo dhawaaqyo gaar ah oo aan ku jirin luqadaha kale. Dhageyso barnaamijyo ama codad si aad u barato. 4. Ku xirnow dadka ku hadla Carabiga. Haddii aad heli karto, ku hadal Carabiga si joogto ah si aad u horumariso xirfadahaaga. 5. Ka faa'iideyso barnaamijyada online-ka ah sida YouTube-ka iyo iskuulada online-ka ah oo lagu barto Carabiga oo kaa caawin kara barashada Carabiga. Iskuuladaas waxaa ka mid ah Akadeemiyadda Tafsiil ee barashada culuumta ku saabsan luqadda Carabiga iyo shareecada Islaamka. Akadeemiyadda waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah. 1. Qaybta ku hadalka luqadda Carabiga oo leh manhaj dhammaystiran. 2. Qaybta qawaacidda luqadda Carabiga sida naxwaha, sarfiga, iyo balaaqada noocyadeeda kala duwan. 3. Qaybta culuumta shareecada sida tafsiir, xadiis, fiqi, caqiido iyo siiro. Waqtiga waxbarashada waa xilliga habeenka iyo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Casharrada waa online, si toos ayayna u bixi doonaan. Wixii faahfaahin intaas dheerna kala xiriir WhatsApp nambarka 06 66 75 35 38.